Welcome back asxaabay maanta waxaynu ka hadlaynaa mawduuc habla badan khuseeya dhammaanteen ina khuseeya inan iyo hooyaba waxa weeye mawduuca xilliga caadada gabadha uu ku dhaco oo ma aragtay wax ayna runtii ka hadal in badan dhakhtar ay nagala taliyeen niman badan YouTube ka soo istaageen kan isticmaal sidan inay yiraahdeen iyagoo dhakhtar ah xitaa haday doonaan laakiin aan ahayn dumar kuna dhicin caado oo hadii xaaskooda ay ku dhacdo de aanu dareemi kareynin shakhsiyan ma garanaysa marka maanta waxaan jeclahay inaan la wadaago sharaab aan cabaayo iyo macluumaad yar siyaabaha aad ma aragtay naturally aad wax uga qaban karayso guriga dhexdiisa iyo waxyaabaha ay tahay inaanad ma aragtay ku daalin xilligaasi marka ay caadada ku hayso oo aan ma aragtay aynu u baahanay qaar badan oo inaga mid inay fahmaan in haddii caadada ku hayso oo aad xanuunsato de in xanuun uu ku hayo oonad u arkan wax iska caadiya ma garanaysaa oo mar walba kugu dhaca bil walba waqtigeeda ama maalmaad ka horeyn ama maalmaad ka dambeyn laakiin bishan inuu xanuunku kugu bataa laga yaaba bisha dambe inuu ka yaraada laga yaaba laakiin haddaad xanuun dareento haddaad hawl badan qaban kari weydo mar walba naftaada u naxariiso waa xilliga ilaahay noogu talagalay inaynu nasano hawsha dunida ka nasano oo ma aragtay waqtiga aynu siina nafteena waqti fara badan oo aynu nasano oo ma aragtay aynaan isa saarin xil aad u culus wixii ugu muhiimsan baan ugu qabtaa xilligaasi maanta waxaan ku soo diyaarsaday sibad waxa loo yaqaano oo aan ku soo shubtay biyo diiran taas oo aan maanta halkan buga ku haystay markaan makeup ka marsanayayna xagga iska dhigay waayo waan gacmahan taagtaagay sibadan waxay ka caawisaa inay iga qaado xanuunka joogtada ah ee meeshii saaran oo ka bilowda halkaasi xanuunka kugu bilaabmaya waxa dareemaysa qarqariyo laf xanuun qabow marka hadaad halka saaratid muxoga sibad biyo kugu jiraan muxuu ahaydeen ay jirka intiisa kale oo dhan baa diiraya waxaan anigu ka dareemay isbedel weyn oo ay anfacayo waan yara warwareejiyaa marka qaarkood waan rogaa dhinacaas hadduu qaboobo biyaha waan rogaa in badan sibadan ilaa 3 saacadood biyaha kulul ku haynaysa laakiin way yara qaboobayaan waxayna ku xiran tahay inta aad ka isticmaashad meesha saarto mararka qaarkood waxaan saaraa qoorta oo halkaasi ma aragtay xanuun aan ka dareemo labada dhinacba yeah it feels really good imika mararka qaarkood xubnahayga ayaan gacmaha halkaasi xubnuhu iska qabtaan iska laabaan oo kale ayaad xanuun ka dareemaysaa oo aad ma aragtay ku soo laabaysaa mararka qaarkood shaqilada ma aragtay iyo ruugaga lugaha ayaa xanuun inaga qabtaa so definitely is good xanuunkaasina maaha qof yar iyo qof weyn gabadh kastiba way dareentaa waalidku yaan loo arkin inay taasi ku dhacdo waxa weeyaan anigu xilligaasi waan dareemaa juuca lower baaga dhabarka oo kale xitaa inaad saartid oo aad saa ugu riixdid dib ugu fariisatid it's really good for me so halka dhabarka ha ii saarnaato markaas sibada hadaanad haysanin farmasiga aad ka helaysaa soo iibso biyo yar oo kulul oo kildhi ku karaysaa ayaad ku shubaysaa si fiican baad u xiraysaa biyaha dushad ka masaxaysaa yaani biyo kulul kugu daadanin dabadeetana kuma jiifsanaysid okay culays badan ma saaraysid waxaad u baahan tahay inaad meesha ku qabato ay ma aragtay xanuunku ka hayo ama qabowgu ka hayo dhabarkayga macaanka aan dareemayo bismillah billah sida islaan yaro isla faqaynaysa waxaan kala doonayaa inaan idin tusoon idin sheego inaan maanta halkan inoogu hayo tada what is this dacarta aloe vera uraysa shiir qaraadna weeyaan so anyway it's so qaraad anyway dacarta malqacad halkan ii taale dacarta jelkeedaas baynu u baahannahay wax kale uma baahnin okay toos looma cuni karaayo laakiin sharaab baan rabaa maanta inaan ka samaysano oo sharaabkaas oo aan doonayo inaan ma arkaysaan sharaabkaas oo aan doonayo inaan ma aragtay smoothie ku sameeyo smoothie ka caawin doonta waxyaabo fara badan aloe vera faa'iidadeeda dalkii meel kasta ka baxdaa bilaash weeyaan aniga $2 iyo barbaa liiga sii qaali weeyaan dadalo okay makeup ka warama maanta simbalka video yar baan sameeyay isagana waan idin link gareyn doona ya boardka la iskaga tumeeyay asxaabta ha soo hor fariisanin adigoo maaragtay dhadhac wax isiyara marin waa the first basic video makeup ka insha Allah habla badan bay makeup kaaga waan ka helnaa so insha Allah hadii aad doonaysaan makeup ka aroosyada ana idin sameyn doona video anyway so dacarta waxaad u baahan tahay jelkeedaasi intaas oo kala aan jaray wax badan ma aan jirin
afar farood oo kale meel ah baan jaray intaasaan jaray waan diiray jelko dhan baan kasoo isku gareeyay waxaan halkan ku shubay bahalkani sharaabka aan ku shiidan doono yes artuta iyadoo googo'an wata halka hoose ku jirta soo arkaysaan soo arkaysaan halkan waxaan ku daray blueberry blueberry wad garanaysaan de waa family-ga berryga the best antioxidant jira ee loogu jecel yahay intii ugu dambeysay waan isticmaalay blueberry sac blueberry iyo mango frozen mango chunky all of them are full of vitamin C and everything vitamina sidan ka dacartuna waxa weeyaan water retention constipation ka beenaysa blueberry-guna waxa weey is the best antioxidant that's out there waxaan kaloo ku daray malqaacad yar oo brown sugar oo halkaas ku jirta aniga tuso malqaacad yar oo brown sugar because mangadani waa yara dhanaan waa dhadhamiye okay halkan waxaan ku hayaa malqaacad cinnamon iyo koob wax yar biyo oo wax yar ka dhaman yihiin ayaa cinnamonku isaguna waxa weeyaan dhiigu jilciya waxa weeyaan blood thinner marka haddaad dawo qaadatid dawooyin fara badan oo kala duwan oo qof maamo waayeel aad tahay ama xanuun kale ilaahay ha ku caafiye aad qabtid cinnamonka waa blood thinner marka dhakhtarkaaga la tasho laakiin anigu waxaan u baahanahay malqaacad rubuceed kaliya ayaan halkan ku qasay waa powder cinnamonka dabadeetana halkan aan ku shubayaa mashiinka ayaan gelinayaa waan ridqayaa waxaan kaloo halkan ku hayaa laba saliidood oo jecelahay inaan idin tusaan rabaa kan daboolkan ka furayaa horta recipe-gaan idin siinayaa saliidii xabata sawdada 3 dhibcood bismillah and then my super fruit oil hemp oil xoogay hemp oil way adkaatay ya ma ka heshaan oo ka helnay that's it and waxaan ku shubaynaa cinnamonka خلاص وحين اسلقلينا مشينك عبايذيس مشينك شيدا يا كاسري ديكسجي بيها كلنا كتير يا أصحابي توصل تصامو توصل تصا يا halka waxaan ku diyaarsaday koob aan rabo aan idinka yaro leexdo halkan koob baan ku diyaarsaday aan doonayo inaan sharaabka ku shubto maangadana barafkii badnaa waan ka riday laakiin haddii aana dhaxan badani ku haynin you can do it okay so halkan aan dhiganayaa mashiinkiina waa kani waa shiidaysaa waxaan sidaa u samaynayaa koobka waan buuxiyey aad baan u buuxiyey biyahan ku badiyey inaanu igu
marka hablaha abateedka ayaa ka xidhma xilligan oo kale haddii aanad waxba cuni karaynin make sure inaad isku qasabtid sharaabkan oo kale waa nafaqa buuxda wuu ku anfacayaa saliidda hemp oilka omega 3 ka buuxda very very nice xabada sawdadana waxa weeyaan oilkaana dawa ku jirta ilaahay baa inoogu ballan qaaday inaynu cunno oo waa the best dawadii nabigu isku daweyn jiray magarasa iyada iyo zaytuunka iyo malabkaba quraankeena la inoogu sheegay marka yaa la moogaani marka maangadi lama arkaayo wax kale lama arkaayo blueberry waa yara chunky I like it that way because maanta qadama cunaya intana ay qada ah waa ina kaasi bismillah waa yara kulayl sharaabkani haddaad doonaysid talaagadaad gelin kartaa this how it looks oh badaadi bismillah dacartii maba ka dhadhamayso xooga yara xabata sooda asiifadeedii baa ku jirta laakiin blueberry-gii iyo maangadii baaba wixiiba macaan ka wada dhigay so waxaan idin leeyahay sharaab caafimaad insha Allah hablaha caadadu haystay dhibaatadu ka haystay mararka qaarkood ku xanuusta iyo kuwa doonayaba in isnafaqeeyaan waayo qofba si uu xanuusta halkan aan soo dhiganay in maray sharaabkeena qaadanayna hadalkeena wadanayna make sure inaad ma aragtay biyahaaga kulul cabtid shahaaga green tea-ga samaysatid sharaab sidan oo kale aad samaysatid oo nafta ku nafaqaysid cuntooyinkana mar la dhandhanaanka iyo basbaaska iyo wixii aynu cuni karno banu cunna abateedka inaga yaraada marka dhakhtaradu waxay yiraahdaan okay cuntooyinka iska ilaali idin waxba iskama ilaalin karayso waxa weeyaan marka qaarkood adigoo shaqaynaya oo ma aragtay hawshii adduunka ku jira unba waqtiga kugu soo gelaya marka taa macnaheedu maaha inaad isdayacday laakiin waxa weeyaan inaan intay meel fariisato waqtiga qorto tir caadada baa igu soo socotay wiiga ka hor weyn cuntadii bedela realistic maaha laakiin se cuntada caafimaadka qabta waa inaad step by step sideedaba ugu bedeshaa noloshaada menu-geeda ama ma aragtay wixii aad cuni lahayd هيد هداد step by step وحنا فقال وجود درته وحنا دوا يسوى صحيا حلي قاسوا كل مركز قاعدين عاتير هذا أوكي كليل بدن بقى حنون بدن بندريمي يا سوري حنون بدن بندريمي يا وين كفين كي يا رئيس طائمك أو جرين تي كوب بدش أما جرين تي يقولوا قاعد كسر لقى تايود فهمت أنا المركز قاركود السجن عبي كريسود مقار هذا وفي عين شراب كنا لمني يا it's good ويرحم بيني برامبو إيجها وانا يرى chunky I like in a blueberry iyo khudradda aanan aad u jajabinin maadaama aan qada kala cunaynin laakiin haddaad doonaysid waxaad ka dhigi karaysaa daxiin all the way makiinada ku shiid tan laba sharaabkani waa healthy anybody baa cabi karaya ma aha dumarka kaliya haddaad joog weyn samaysid family-go dhan baad la share garanaysaa xaajigaad siinaysaa carruurtaad siinaysaa cunto caafimaad la ayay halkaa ka baranayaan you know it's really good just make sure waalid haddaad siinaysid cinnamonka inaad ka yaraysid ama cinnamonka adaa gadaal kaga darsan doona kaga darsan karaya wixii aad doonaysid caruurta aanad la rabin oo kale caruurta kale uma baahna wax balartinara ama cinnamon iyo waxyaabaha noocaasa laakiin adaa ku qasan karaya iyo xaajiga waalidkana eeg caafimaadkeeda hadii dawooyinka ay cunayso la mid yihiin qaar ma aragtay aan cinnamonka la siin karin waayo dadka qaarkood baa blood thinners dhakhtaradu siiyaan dawooyin dhiigooda jilciya ma garanaysa dhiigooda culus yahay oo isqabqabsadaayo ma garanaysa xinjiro noqdaa sidayna inagu nidhaahno marka ilaahay baa abuuray xanuuna fara badan caadadu waa ta ugu simbalsan ee gabadhu ma aragtay caafimaadkaba si qaado markaba recovery baynu samaynaa laakiin wiigaas in iska dulqaadano weeyaan haddii aad caadada ku xanuunsadii haddii kaleba fariin ii dhaaf saaxiibada la sheer garee xaaskaaga haddaad daawato ogow inay tahay qof xanuunsanaysa haddii caadadu hayso caawi muxuu ahaydeene u keen naxariis u fidi muxuu ahaydeene hawsha ee dhibaatada ka yaree hadday wax ilowdo ha ku adkeynina ha ku dhibin muxuu ahaydeene hadday daalanta tiraahdo nasashaan u baahanahayna waqti siiyo caawi heer xijaabka maxaa ku dhacay sorry marka intaasaan idinkaga tegayaa haddii ilaahay yiraahdo barnaamijkani Somali Fashionista taxan uu noqonayaa
waxaana kaloo idin hayaa waxyaabo kaloo sameeyo sida kiniinkan oo kale oo maydha la yiraahdo oo la soo saaray dhowr sano ka hor oo loogu talagalay gabadha markay caadada aad u xanuunsato oo kale marka haddii aad shaqo tegisid maalinta ama meel muhiim aad tegis ama safar aad tegis way qof walba gurigii ma joogi karaayo bil kasta waqtigaasi mararka qaarkood baa adigoo hawl ku qorshaysnayd ay maaragtay kugu soo gashaa farmasiga over the counterkan ka qaadanaa marka farmasistka la hadal dhakhtarka farmasiska ah dawo ku habboon caadadaada ayuu ku siinaya tan oo kale waa midal baa la yiraahdaa waa over the counter ayagaaba naga iibiya 8 saacadood baad cuni karaysaa 8 saacadood ayay ku haynaysaa xabadda kiniinka ah marka 20 neer baa ku jira waan iska haystaa marka iga dhamaataba waan keensadaa waxaanan cunaa shaqada intaanan tegaynin haddii shaqada igu badan tahay ayaan xabad afka kusii tuurtaa markaan quraacdo make sure haddaad dawo cunaysana cunto hal xabo quraacda dabadeed dadna waa iska shaqo tegaysaa hadhow toole casarku markuu gaabtana xabad kalaad cunaysaa way kaa caawinaysaa hawshii guriga taa macnaheedu maaha inaanad weli waxba dareemaynin way kaa yaraynaysaa un weeyaan soo waxa weeye naftaada u naxariiso marka xilligaa aad joogto vitaminadaadana ha ilaawin hadda vitaminada xaggaasi ii yaalaan labadeedii vitamin ma liqaayo because qadadeydii maanta waa intani markaan intaan cuno ilaa 2 saacadood 3 saacadood kadib ayaan cashadii baaba la gaarayaa oo loo diyaar garoobaya dan cashada horteedun baan cunayaa vitaminkayga labadeeda vitamin xagga aan ku haysto I hope this information help you waxa kaloo ka caawinaya like and subscribe please la socdo Somali Fashionista waa channelka kaliya hablu iska leeyihiin aynu wax walba ku falanqeynayno inaga nakhuseeya maraqyadu way ku fiican yihiin xilliga maaragtay caadada ay ku hayso wixii dhandhanaanad xiisaynaysa cuntada ku cunsiinayana definitely weliga ayaa allaha hays oran haddii abateedku ku furmana waa alxamdulillah ka warwari miisaan ku koro cun wax allaali wixii ilaahay ku siiyo cun it's good for you habibti because xawayaan you need anigo xilligaani waan ka go'aa cuntada ana ku sheegay cunta ma cun marka haddii abateedka iga dhinta hurdada iga yaraata madaxa ay xanuuna lafaq garaac baa igu dhaca muxuu ahaydan dhabarka ay xanuuna muxuu ahaydan mararka qaarkood fikirkaaga yaraanaya isloogu jirkaaga noqonaya xanuunkii waxay ku xidhantay xanuunka korku igu batiyo korku igu yaraa marka wiigaasi hawshan aad ku qabtaa waxa weeyaan waxa ugu muhiimsan doonaya ama waxa ugu fiican xiisaynayo ee aniga i wadaayo wixii kale iska dheeraada misugi karaa next week wax isbedelaya ma jiro shaqadaada iyo familygaaga iyo hawsha gurigaaga iyo wixii muhiim ah asxaabta iyo ehelka is the most important wixii kale waa easy take it easy insha Allah khayr baa idin rajeynayaa insha Allah waad share garayn doontaan subscribe kana saarta wixii mawduuc aad rabtaan aan ka hadlana isoo sheega habla iga soo codsadeen aan makeup-ka quruxda badan ee xafladaha lagu tababaro iyo hablo dalkii jooga raba makeup-ka professional-ka inay bartaan marka haddaad adiga laftiraaga xiisaynaysa taasi barnaamijaan idin soo diyaarinaya like and subscribe lana wadaag ciddii aad jeceshahay Somali Fashionista oo aan idinku talagalay inaan mar walba ka faa'iideysano ana aan idinka faa'iideysto way dad badan baa su'aalo isoo weydiiya oo aan jecelahay inaan la wadaago sharaabkan wadaya bismillah cunta caafimaad qabta wax dhaamaa ma jiraan weliga ayaa Allah ayaan lagu oranin waxaan oo moorgaraysan oo diyaar baa jira okay yarayso waxa la wixii moorgaraysan cuntadaasi haddii inta banaanka la dhigo aanay qurmaynin ya hadda maangadaasi soo banaanka ma soo saarin hadday taalo ilaa beritoole way xumaanaysaa that is real food cuntada dhabti waa taasi wixii kale dhalinyaro sharaabad meel degdeg kaga iibsatiyo waxaasi ha yaraadaan haddaad soo yarayso jirkaaga wuxuu u baranayaa inuu nadiif noqdo wax caafimaad qabo oo markasta cuno aad baan idin soo salaamaya asxaabay I hope you like my fast makeup and hana la isqurxiyo okay bye